الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون walaalayaal aayadaha kooban ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan idinla wadaago macaanida ay ka hadlayaan iyo culimo badan oo culimadii salafka iyo muslimiinta waxay ka yidhaahdeen iyo ta'hiirka iyo raadka ay ku sameeyeen haddaad aayadaha u laabato mar labaad rabbi wuxuu leeyahay subxaanah أفرأيت إن متعناهم سنين نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالولا خطابيا نبي الله محمد بالكورن أفرأيت إن متعناهم سنين هدان ددك وقت دير سينوي نولادان ثم جاءهم ما كانوا يوعدون kadibna uu yimaado wixii loo ballan qaaday ama loo yaboohay oo ah mowt iyo geeri ilan wuu imaanay walaa maxaalata maa aghnaa canhum maa kaanuu yumattacuun wixii loogu raaxeeyey adduunka oo nicmo ahaa oo maal ahaa oo caafimaad ahaa oo carruur ahaa oo jaah iyo weji ahaa awood ahaa jaga ahaa waxba u qaban maayo maalintaa waxba halkaa ka tari maayo maa aghnaa canhum maa kaanuu yumattacuun haddaba walaalayaal aayaddan dadkii culimmadii muslimiinta qaar ka mid a nin la odhan jiray maymuun ibnu mihraan oo ahaa taabici ayaa wuxuu u yimid xasanulbasri oo isaguna aada ogtihiin taabici ahaa wuxuu ku yidhi iwacdi abaa saciid waxaan kaa rabaa inaad iwacdido mawcida isii qalbigaygaa qallalay wacdi iyo tadkiir baan u baahanahay waxaan kaa rabaa kelima inaad idhaxdo wiilkiisaa la socday weliba camar meeshii uu sugayey inuu wacdi tiro badan oo kala siiyo yuu xasanulbasri aayadahan buu ku dul aqriyey afara'ayta in mattacnaahum siniin huma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhum maa kaanuu yumattacuun aayadaha markuu ku dul aqriyey maymuun ibnu mihraan uqmiya calayhi waa la miir daboolay wuuna dhacay waxay leeyihiin wiilkiisu oo warinayoo la joogay waxaan arkay aabbahay oo lugaha sidaa lugtiisu ay u gelgelinayso sida neefka adhiga ah buuri marka la gowraco tudbaxu shaata si neefka adhiga marka la qalasay lugaha u garaacdo aabbahay oo lugaha saa u wareejinaya ayaan arkay kadib waxaa lagula teliyey inuu kaxeeyo odayga dhaxda markay sii marayeen yaa wuxuu ku yidhi aabbo wacdi badan laguma wacdinin wax badanna ma maqlin wax maxaa dhacay wuxuu yidhi halkaa laabtaabaa intuu sidaa iiga gujiyey ayaa wuxuu ihi maandhow waxa laynagu dul aqriyay aayadaha nagu dul aqriyay miyaadan maqlaynin waxay ahaayeen kuwa qofka dareen geliya kuwa lala dhaca ayay ahaayeen sidaas oo kale ayuu cumar binulcabdicasiis oo maymuun ibnu mihraan uu kaatib u ahaa ayaa waxaa la yidhi maalin walba mar buu aqrin jiray aayadahan weliba fii maxalli camalihi meesha uu fadhiisto uu shaqada ka wado sida makaatibta iyo xafiisyada hadda la fadhiyo halka hawsha uu ka kala waday
markuu soo fadhiisto yuu aqrin jiray cumar bin cabdilcasiis afara'ayta in mattacnaahum siniin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون haddii cimri lagu siiyo haddii geeridu ay timaado adduunyo waxaad haysatay oo nicmo ahay waxba kuu qaban maayo haddaba cimrigeennu intuu dhan yahay cimri haddii layna siiyo afara'ayta in mattacnaahum siniin sanadaha layna siin karaa ee ummaddan cimrigeedu waa meeqa rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam acmaaru ummatii maa bayna 60 ilaa 70 wa aqaluhum man yajuusu dalika buu rasuulku sala allahu alay slam xadiis saxiixa ummadayda cimrigeedu ummaddan muxamediyada cimrigeedu wuxuu u dhaxeeyaa 60 ilaa 70 buu u dhaxeeyaa cimrul gaalibku intaa weeye naadirka laa xukma lahu baa la yidhaha wixii naadire xugum ma leh inta badan ummaddan cimrigeedu waa 60 ilaa 70 ka yarra waa lagu dhintaa ka weynna waa la gaadhi karaa laakiin ka weyn rasuulku muxuu yidhi wa aqaluhum man yajuusu dalika in yar baa gudbaysa 70ka haddaba waxaad ogaataa xadiid kaluu rasuulku ku yidhi acdara allahu caza wajal man balaga 60 qofka gaadha 60 sano ilaahay cudurdaar yacni qataca cudurahu baa la yidhaahdaa cudurdaarkiisii waa la gooyey cudurdaar ma leh ilaahu maxaa waqti la ii siin waaye ilaahu maxaa cimri dheer la ii siin waaye aan waxoogaa noolaado aan soo toobad keeno aan xajka tago aan salaadaha tukado aan cibaadada sameeyo aan sadaqaad baxsado aan kan sameeyo marba haddii aad gaadhay 60 haddaad gaadhay cudurdaarkaagii waa dhammaaday bimacnaa ma sheegan kartid cudurdaar waa lagu sugay allah subxaanahu wa tacaala cimrul gaalibkii ummaddan loogu talagalay waa ku sugay ma ka faa'iidaysatay mise kamaada faa'iidaysan nicmataani maqbuunun fiihimaa kathiirun min annaas alsixatu waalfiraaq waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam nicmooyinkana lama dareemo nicmada maanta aan haysanno caafimaadka aan haysanno firaaqada dadka qaar ay haystaan wakhtiga la heli karo ee wax lagu baran karo wakhtiga isaga ah lagama faa'iidaysto amaa mutcadan adduunka oo mataacul guruurka ah oo waxba aan meesha oolin ee lagu kadsoon yahay dadka la siiyey oo gaalada ah maxay hayaan والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ولو فرسوا dadka gaalada oo ahlu iimaanka aan ahayn tamatuc bay adduunkan ku jiraan xayaatadan yare adduunka ka waashay taasay ku dhalinteedkeeda iyo ku jiraan dayib way nimcaysanayaan way ku raaxaysanayaan sida bahaa-imta iyo xooluhuba ay daaqa u cunaan ay u daaqaan bay iyaguna u daaqayaan dayib haddaba qofkii cimri la siiyo camalkiisuna u wanaagsanaado waa wax fiican oo wixii rasuulku sal waa masale culimmadu ay isku khilaafaan cimri dheer ma lagu ducaystaa qaar waxay leeyihiin cimrigii alla kuugu talagalay meel buuba yaallaa waana lagu siiyey marka ku ducaysigu waa howl kale laakiin waxaa sax ah sida rasuulka ka sugan sala allahu calayhi waaalih wasalam in lagu ducaysan karo cimri dheer rasuulkuna uu yidhi sala allahu alay wasalam wa khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu dadka waxaa ugu fiican qofka cimrigiisu uu dheeraado camalkiisuna uu fiicnaado ibnulqayim raximahullah baa adduunyada sifeeyey iyo maalmaheeda wuxuu yidhi ladaatu ddunyaa haddaad adduunka macaankiisa iyo isu geyso wuxuu uun la mid yahay
sayfu saxaabatu sayf xilli xagaa daruur xagaa baa af soomaaliga lagu yidhaahdaa. daruur xagaa intay soo hoorto oy waxoogaa dhagagac tiraado oy roob yari ka soo daato baa haddana la waayaa, meeshiina waa iska qoraxdii baa taagan. marka daruur xagaa ayuu adduunku la mid yahay oo durba way faydmaysaa buu yidhi daruurtu. nolosha adduunka iyo ladaadka iyo macaankuna sidaas iyaguna durba u faydmayaan. kadibna wuxuu aqriyey afara'ayta in matacnaahum siniin ثuma jaaءahum maa kaanuu yuucaduun maa agnaa canhum maa kaanuu yumatacuun. abulcataahiya nin la odhan jiray shaacir ahaa, gabayo xigmad badan oo zuhdi iyo waxyaabo badan iyo raqaa'iqna sheegi jiray baa wuxuu yidhi: cish maa badaa laka saaliman fii dilli shaahiqati اlqusuur faida الnufuusu taqacqacat fii dayqi xashrajati الsuduur fahunaaka taclamu muuqinan maa kunta ilaa fii guruur. adduunyadu wataa marka. cish maa badaa laka saaliman, iska noolow intaad rabto, inta alla kugu tala galay, adigoo weliba nabad galay oo fayow oon jiranayn, noolow. fii dilli shaahiqati alqusuur, weliba guryaha bildhinada dheerdheer, cimaarooyinka dheerdheer, dabaqyada dheerdheer, qusuurta iyo qasriga boqortooyada ku noolow. faida annufuusu taqacqacat fii dayqi xashrajati الsuduur, markii naftu ku qabato, iririqa iyo qaracda naftu markii qofka ay ka baxayso, dayib ee weliba aada hiinraagga uu qofku ku jiro oo naftu ay ka soconayso, fahunaaka taclamu muuqinan maa kunta ilaa fii guruur. markaasaa waxaad yaqiininaysaa ood ogaanaysaa waxaad ku jirtay kada inuu ahaa iyo dhalanteed iyo waxaan jirin ayaad yaqiininaysaa. marka wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu lguruur, adduunyada nolosheedu waa iska kadada. walaalayaal, yaynan adduunya inala tegin, yaynaan isku halmaamin, gafla yayna ina qaadin, halmaan yuuna ina qaadin, dikriga ilaahay yaynaan halmaamin, dikru haadimiladaad mowdka yaynaan halmaamin, geerida yaynaan halmaamin. maalin walba qof baan ku tukannaa. maanta oo jumcaha salaadii duhur qof baan ku tukannay. waxaan ku tukannay maalin ka hor mise 2 maalmood qof kale, 3 maalmood qof kale, wiigan dhexdiisa 4 mise 5 baan maraynaa intaan ku tukannay. masaajid walbana waa sidaas oo kale. sidaa iyo yaad loo dhimanayaa. marka qaarkood geeridu mufaaja ay ku imaanaysaa, adigoo hurdaad soo yaa la arkaya, adigoo naftu kaa baxday, baabuurtana lala wada cararayabaa shil maalin walba lagu galaa. xilli aan gaadhayna ma naqaano. yaynaan halmaamin geerida iyo mowdka, yaynaan isku halmaamin adduunkan iyo noloshiisa. aan indhaha ku hayno aayaadka rabbi, tadabburkooda yaynaan halmaamin. afara'ayta in matacnaahum siniin ثuma jaaءahum maa kaanuu yuucaduun maa agnaa canhum maa kaanuu yumatacuun. allah subxaanahu watacaala soonkiiyo salaadiiyo sadaqaadkaba haynaga aqbalo, rabbina towbadiisa hayna waafajiyo, gaflada iyo halmaamkana haynaga badbaadiyo. wajazaakum allahu khayr, wabaaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.